Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal, waxaan jeclaystay inaan ila wadaago qiso ka mid ah qisooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho oo ah qiso aad u murugo badan. Qisadan waxaa ka sheekeynaya walaalkay qisada ku dhacday. Waxa uu ku bilaabay sida tan. Waxaan ka mid ahay wadayaasha bajaajyada ka shaqeeya xaafadaha magaalada Muqdisho. Habeenada ka mid ah waxa i soo raacay gabar aad u qurux badan oo dhalinyaro ah. Waxay igu tiri, waxaad dhigaysaa xaafad hebel oo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Waan geeyay oo waxay wacday lambar ama telefoon. Markii aan geeyay meeshii ay doonaysay, nasiib darrose taleefankii lagama qaban. Waxay igu tiri xaafad hebel kale igee oo ah xaafad labaad oo meesha aad ugu dhow. Waan geeyay oo markii labaad waxay wacday telefoon. Nasiib darrose taleefankii waa uu dansanaa ay wacday. Waxay igu tiri meel saddexaad igee oo aad meesha uga fog. Waan geeyay xaafadii saddexaad oo isla sidoo kale waxay la soo baxday taleefankii. Waxay wacatay lambar, waa laga qabtay oo waxaa lagu yiri waan ka fogaayay xaafadda oo ma joogo, caawana ma haleeli karayo inaan is aragno ee mar kale inooga dhig. Taleefankii iyadoo aad u caraysan bay demisay. Aniga ayay igu soo jeesatay oo waxay igu tiri lacagta iga doonaysa waa imisa. Waxaan ku yiri waa $8. Waxay igu tiri haddaba imaqal, anigu wax lacaga ma hayo beri baan kuu soo diri doonaa EVC ahaan lambarkaaga ii sheeg. Aad buu u xanaaqay yarkii bajaajleyda ahaa ee bajaajka kaxeynayay oo qisadan ka sheekeynaya. Wuxuu yiri aad baan u xanaaqay oo waxaan ku yiri lacagteeda sii oo waa xalaasheeda oo waan shaqaystay. Haddaba waxay ku tiri waa xaqiiq anigu wax kulama kaftamayo wax lacagna ma hayo. Markii ay dareentay inuu aad iyo aad u xanaaqsan yahay inankii bajaajleyda ahaa, baa waxay tiri haddaba caawa waan kula seexanayaa waxaad doonaysa iga samayso haddaad $8 ii dhaafayso oo aadan ii qabsanin. Yarkii asoo dhoola cadeynaya yaa wuxuu yidhi haddaba waa igu ciyaaraysaa iga daa ciyaarta. Markaasay ku tiri ma ahan ciyaar ee waa iga dhab, haddaad ii cafinayso $8 caawa waxaad doonta iga samayso. Haye baan ku yidhi oo waan isku raacnay arrinta iyada ahaa. Waxaan geeyay xaafad meesha aad ugu dhoweyd oo degnaa wiil saaxiibkay ah. Markii baa habeenkii seexanay oo intaana seexan waxaan ka raacay familkayga. Waxaan u sheegay inaan caawa soo hooyan karin oo aan imaan karin xaafadda sababtoo ah magaalada oo aad u xirxiran wadooyinkooda howlkalna uu ka jiro. Sidii ayaan ku qanciyay reerkayga inaan caawa soo hooyanin. Habeenkii halkaas baan iskaga baashaanlay aniga iyo gabadhii oo xilliga waaga wax walba oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka ahayn bartaas ayaan ku sameynay. Markuu magaalada bariyay baa gabadhii kaxeeyay waxaan geeyay laamiga. Bartaas ayaanu isku macsalaameynay. 3 maalin kadib anoo shaqada ku guda jira ayaa waxa ay soo garaacay telefoon aan garaneyn. Waxay igu tiri ma ii garanaysaa. Markaasaan ku yiri haa codkaaga ayaan fahmay oo gabadhii habeenkii sama tihid. haa bay igu tiri. Waxay igu tiri haddaba nolosha cusub soo dhaweey. Anigoo qoslay ayaan waxaan ugu jawaabay sidoo kale soo dhaweey nolosha cusub. Haddaba waxay igu tiri HIV/AIDS ku soo dhawow. Taleefankiina way igu demisay. Isla turbadii waan wacay laakiin nasiib darro taleefankii way dansatay. Maalintii idil baan wacay anigoo walwal iyo walbahaar aad u xoogan i haysto. Ilaa maalintan waa wacaya oo taleefankeedu uu dansan yahay. Aad anigoo u walwalsan ayaa maalintii labaad waxaan tagay isbitaal si aan isku baaro. Waxay igu yiraahdeen wax cudur ah kaama muuqda ee waxaad nagu soo laabataa bil kadib si aan kuu jeeg kareyno. Bishaasi aad iyo aad bay cariiri u ahayd. Noloshaydu idil baa isbedeshay. Waxaan ku noolaa murugo iyo fikir iyo walbahaar. Bishii ayaa si halhaleyla u dhamaatay. Waxaan u cararay isbitaalkii. Markaan tagay isbitaalkii oo check-upkii la mariyay, waxaa la sheegay in layga helay ama aan qabo cudurka HIV/AIDS. Aad baan u murugooday. Waxaan dareemay murugo aad u xoog badan. Waxaan imaaday anigoo ilinta iga socota reerkayga. Waxaan leeyahay xaas iyo 6 caruur ah. Xaaskayga aad iyadana ila murugooday oo yiri waxay igu tiri ii sheeg waxa ku haysta. Waxaan ku yiri waxaan qabaa cudurka HIV/AIDS oo bishan ugu dambeysay waxaan kula wadaagi waayay on kalmo kula sameyn waayay. Waxay ahayd cabsi aan ka qabo inaad aduna kula wadaago waxaas. Markaas inantiina aad u ooysay, asuna aad u ooyay. Wuxuu yiri waxaan go'aansaday inaan ku furo ilmahayga adigana aad si nabadgelyo ku noolaataan anigana aan meel cidla ah iskaga noolaado. Bartii ayaan ku furay buu yiri. xaaskayga carruurteedana magaalo ay ku nool yihiin anigana meel kale aan ku noolahay oo hadirtaan waxaan ila wadaagay
oo aan la noolahay cudurka HIV AIDS. laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah.